بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku soo jirnay casharada imtixaanaha ahaa sida baxtiga loo horumariyo maanta waxaynu qaadan doonaa hadii ilaahay idmo baxtigu markuu kamid yihiin abiyad shicir ah ama beydad shicir markii ay ku jiraan baxtigaaga ama qoraalkaaga imtixaan ha noqdo ama baxti caadi ha noqdo markii ay beydadka shicirka ku jiraan sida aad la tacaamuli lahayd iyo barnaamijkii ku nadaamin lahaa shicirka laftirkiisa ilaa waxaynu ognahay shicirku wuxuu u diyaarsan yahay qaab ka bedelan warka nadmiga macna nadmi iyo nasri ayaynu niraahnaa marka nasrigu waa erayaasha isdaba jooga laakiin shicirka waxa taqaaniin inuu yahay laba beyd oo hadii la yakuna shatri hore iyo shatri dambe marka meelaha aad ku habeyn lahayd ayaynu maanta qaadan doonaa hadii la hayno ko waxaynu tagi doonaa meel kamid ah hadii la yakuna waxaynu soo qabsan doonaa raabid ayaan idin soo diri doonaa raabidka ayaad ku dhufan doontaan check-siin doontaan raabidka marka check-siisaan wuxuu idin geyn doonaa meeshan hadda inuu ku soo aadan hadii la hayno tayib raabidku sidaan ayuu keeni doonaa markuu sidaan ku keeno dhinkan ayaad hoos u degaysaa meesha WinRAR ku qoran tahay ayaad hadii laga RAR waxana WinRAR bay ka dhigan tahay waxa laga yaabaa hadii computerka adeegsanaysa English ya dhinaca xagga inuu mariyo laakiin markasta RAR baa ku qoran kaas ayaad ku dhufanaysaa halka ayuu kaga soo degayaa marka isla markaba soo degitaanka ayuu bilaabayaa aniga hadda ka hor ayaan soo dejiyay oo uu ii soo degay hadda ka hor marka uu ku soo dego saan kale kugu soo dego ayaad boxka furaysaa boxka marka fudhana waxay raayad sugaysaa sidan ayuu kugu daahiraya WinRAR laftirkiisa ayaa double click ku dhufanaysaa ee furaysaa WinRAR ka markaad furto ayaad barnaamijka waa kan isaga double click ku dhufanaysaa waxaan bilaabaynaa markaan installkii inaan ku shubno barnaamijka computerka ilaa markaaga horeetaba barnaamijka ma haysato waana barnaamijka diyaarsato nacam baan dhahay doonaa deedna next baan dhahaynaa deedna next baan dhahaynaa install baan dhahaynaa next baan dhahaynaa ugu dambeynna finish ayaan dhahaynaa sidaas ay waxay uga dhigan tahay barnaamijka inuu ku shuban yahay warka waxaan xusid mudan anu hadda ka hor baan ku shubay laakiin adiga markaad ku shubaysid dhammaan waxa waar ah ka xirnaadeen dhammaan waararku ka xirnaadeen oo iyadoo waar furan yahay barnaamijkan ha sameyn waayahay waxaan soo furayaa marka waxa la yiraahdo waar ayaan soo furaynaa waayahay waxaad u jeedaan waarka halkan waxaad aragtaan الوظائف الإضافية إنك صادر مطيع دي أنا كل فترة قصيدة يعني كده غالب البحوث والرسائل ونوتج دونا وعشرات نوصل صعبين نقدم دونا هدي على المسجد الله وقش وان بران دونا لكن وحاول هذا القصيدة وجد كان القصيدة هدي أنا كل فترة برنامج كنا عنا هي أنا أفرمه هذا بس إذا نستال كذا يوم قرنا يسوي دجنت هذا يكشوفيتان كمبيوتر كا أنت أصلا نغني 10 كيس وحن كسير علينا حاول كلا شري ماينا sida aanu u nadaamin lahayn tusaale hadda qasiidadan ayaynu nadaaminaynaa tusaale waayahay waxaynu tagaynaa wadaa'if qasiidadii waatan wadaa'if aan tagaynaa barnaamijka ayaynu furaynaa waajahadiisa ayaan marka hore sharaxayaa intaan qasiidada soo koobiyin ka hor waajahadiisa halkan horeeta waa nadim waxay ka dhigan tahay abyaadii markaad diyaarsato oo abyaada aad meesha soo geliso oo waxa laga rabo yani ijraadka laga rabo dhamaystirta ka bacdi waa doonaysid abyaadi inay ku noqdaan barnaamijka kugu diyaarsan sidii abyaadi ayaad nadim dhigi doontaa halkan jalbil qasiida ayaa ku dhigan oo markaad qasiidada copy soo tiraahdo ayaa jalbil qasiida wax ku noqonaya active oo meeshaad ka dhigi lahayd ayada iyo la saqdaan hoose ayaad ka dhigi kartaa islaahul qasiida waa qasiidada ayaad ka hagaajin kartaa hadii wax siin at-tacliimaatna waa wuxuu ku siinaya يعني حاجة حاجتان أيو كسينية إغلاقنا وإغلاق البرنامج هذا ماشي حسيتان كمدة وحوي شكل القصيدة شيء مهم كهو شكل القصيدة وقصيدة واحد نقول كرتا عمودان ولو الشطري والسمن وسقرب تلاقى إيوه متدرج شطري هراء الصعدة يشطري كلاته هوست يسميه كله كبلوضة والله بشطري كلامه هذا عمودان كلامه بتجاوبين دون أصل القصيدة أما كنت تجاوبين دون لوضة هل كان مركز أرجعنا عرض القصيدة يا إنه مقطع المسافة بوحدة المتر مركا وأنت قصيدة كودا حينيسا ولا بدأ قصيدة يسوي سنة ياوا تنوع هبكا أو بديك ميسا موحد ربطة أدوي سير حددتين انتهاي مسي واحد كده كان دونتا بقول كي وسجاشن بقول كي بكذا وايه هذا بواجه هذه ما كنا شرحنا كبعدي
waxaynu soo qaban doonaa haddii ilaahay idmo waxa la yidhaha abyaadda ayaan soo koobi karaynaa waxaynu ku tadbiiqin doonaa camuudaan iyo mutadarrij labadaba isla labadaba halkan qasiida ayaan ku tadbiiqin doonaa si aad u aragtaan waayo qasiida qayb ka mid ayaan highlight saaraya ilaan qayb ka mid waxaan rabaa inay noqoto baalka la yidhahdo mutadarrij qaybna waxaan rabnaa inay noqoto camuudaan bal hadda qaybta horeeta ayaan camuudaan ka dhigaynaa haddii alla idmo qasiida ayaanu kusoo dhufanaynaa markaan highlightka saaro oo aad highlight garayso copy ayaad dhahaysaa ama korkeeda inta ku dhufatid nasakh ka dheh ama gacanta ayar waxaad ku tiraahdaa meesha la yiraahdo control plus c oo nasakha haddaba halkan ayaan waxaan ku leeyahay lasaq halkan ayaan ka dhigayaa control plus v na waa ka dhigi karaa oo computerka ah way markii qasiidadii sidaa noqoto shardiga waxa la iga baahan yahay waxaa weeye اكتب القصيدة هنا وارتها كل بيت في سطر ويفصل الشطرية بعلامة تساوي وحلقة ربنا لبدا شطري أيسان أكل قاعدينهن وشطري هري شطري كضم أكل السوعينهن سأل وشطر أكل نقضان لحظة إن عندك علامة تساوي سيدا كلا لبدا بيت كان ضم بيت لبدا الشطري وأنا سيدا أي نقطة لحظة أنا وعندك هي علامة تساوي علامة تساوي sidaas ayaan ku waday laba shadri kasta dhexdooda waxaan gelin calaamadda la yiraahdo calaamatu tasaawi waxayna ka qormaysaa keyboardka halka balaaska ama laga qoro baasha la yiraahdo haddaba markaan sidaa ugu soo dhameeyo oo barnaamijkii aan diyaarsaday waxa ay dooranaa yihiin camuudaan ayaan waxaan dhihi doonaa nadim idan hadda نظام عندنا وحير ينسوقيا وحير كبعد الرسالة أنا يالي إيمانيسا تم تنظيم 9 بيت شعري سقال بيت أيام لما يستريبكي دقيقة وحكاير وعرفتها أبيات عادية يسو بدري لبضا الشطر أي سميه قيبته هوسيا إذا أنا متدرج بان كدي قدونا intaan hoose ayaan bahalka la yiraahdo copy kareynaya kulligood wada copy karey waayo copy ayaan dhahay qasiidada ayaan soo furin horay baa hashii ahayd baa igu jirta taxdiidul kulli ayaan dhahay dabadeedna ka adeegsataa keyboardka delete ka dheh waayahay tii aan hadda watay ayaan dhigayaa marka waxaan sameynayaa isla intii haddeertaan aan sameeyey calaamata tusaawi ayaan dhex dhigi laba beyd kasta labadiisa shatri dhexdooda waxaan gelin calaamata tusaawi calaamata tusaawadaasna waxaa muhiim ah horeyna inay ka jirto space gadaalla uu ka jiro space yani horeyna masaafo bannaan oo u dhaxaysa kelimada iyo iyada wanaysan isku ahayn yani saa isugu dhegan waxaa loo baahan yahay waa maxay in ay kelimada xoogaa kasoo yar darugsan tahay oo labada kelima dhexdooda ay taala labada kelimaba tan ka horeysa tan ka dambeysana masaafo ay u dhaxayso waay markaan sidaan yeelo intaan dambe tammat wa bil khayri ammat ayadu beyd maaha markaas waxba kala dhex gelin calaamad tusaawi siin mayno xaggan hoose ayaan u baxayaa waxaan dhahayaa mutadarrij dabadeed way ii diyaarsan tahay waxaygii oo dhan waxaan dhahayaa nadim waxyar ayaan sugayaa طيب رسالتنا ay timid 12 beyd ayaan dhammaystiray waxaad u jeedaan tan qaabka u diyaarsan tahay inay tahay abyaadii oo shatriga horeeto uu dheer yahay xoogaa shatriga dambeetana kiiso meel ka sokayso ka bilaabanayo qaabka noocaas waxa la yiraahdaa tadarruj kii horeetana labada camuud ahaana cumuudaan baa la yiraahdaa haddaba aynu aragna siday noqotay wabil khayr ammat Soomaaliya tamado bil khayr ammat qasiida maanayo laba shatri ma waa hal shatri kaliya oo dhexda ay taagan tahay haddaba haddaan dib uga laabano waxaan hadda ka dhigaynaa camuudaanka waynu ka deynaynaa oo sidii tii hore aan ku wadno kale ayaan ka dhigaynaa camuudaan ayaan ka dhigaynaa sidii tii horeba ahayd waxyar ayaan tusaale rabaa inaan kugu soo qabto waay 12 page waad aragtaa sida ay noqotay kaliya qasiidadan iyo qasiidadii hore waxa u dhaxeeya masaafadaas ayaa u dhaxaysa masaafadaasna waa inta ay kala laba xaba kala tahay okay waad aragtaa tamatu bil khayr amad sida ay noqotay ayaa tadarrujkiina waan idin tusay camuudaankiina waan idin tusay barnaamijka sida loo soo dejinayna waan idin tusay idan 10keena inahaas ayuu ku ekaanaya magacaygu waa Saciid Axmed Faarax waxaanu ku guda jirnaa 10radii qorista baxtiga diyaarinta iyo hagaajinta
diyaarintuna waa marka hore meelaha aad ka imaan ka keenaysid oo maktaba shaamil ay wixii la mid ah hagaajintuna waa marka dambeeto abyaada shicirka ahayd aayadihii qur-aanka ahayd iyo qaalib albuxuuth warasaa'il oo inoogu soo socdo haddii aan loo yidhaa aad ayaan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu